nin qumayuhu ahaa wuxuu sameey jiray 3 maalmood iyo 3 habeen oo isgaajaysiina waxba cunayo waxba cabayo marka buulu ku dhex jira guri buulu ku dhex jira 3 maalmood 3 habeen waxba cuni maayo meel marka wuxuu furanaa 3 maalmood 3 habeen markii uu dhamaato meel yar oo daaho aqal Soomaaliga buulka uu ka banaysana asagoo nafa oo haraad iyo gaajo uga cadahay qofkii meesha maray daaho ka qaada saas u feerana kaw waa lagu soo boodaya qofkaas nin noocaas oo haajir nimankii marka heer Quraysheed nabiga sallallahu alayhi wasallam jihaadka iyo diinta dhibaatada uu ka soo maray wax aan lagu dayin dhibaato aan lagu dayin oo gaaladu aysan ku dayin nabiga sallallahu alayhi wasallam ma aysan jir ninkan ay u tageen wax kasta ku sameey weynay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidii yeelay qumayso meeshan uu maraa meeshuu maray agteeda buul ka sameeyso ee 3 maalmood isku gaajee il aad ku dishid 3 maalmood marka wax ma cunin waxna ma cabin meeshuu buulku nabiga u galay sallallahu alayhi wasallam isagoo naf u cadahay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam meesha soo maray wadaahiisa isaga fiir saas u fiiri nabiga alayhi salatu wasallam ده خير خلق الله حق إلهي اللي قد دفاعي معه حق قاضي كرم واسك السعودية رسولك صلى الله عليه وسلم ومرك آيات القرآن كمرك يسود دقيس وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قالوا وحي بس جنبا إن يكوسم بالرحيان يكون لك دان إندهود وحكست أنت صور دافن إنده هبك عقد إنده فلنس إلا وحكات الرئيس أوكل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وحي السجن مركان يكوسم بالرحيان يكون دلان إشاس مركز نكان قبي تري قوم يجيو وبولك جلجر قد كان قومك قومك وحي هانترين يحسبونك وحي كون ملايين ترين سيدا والنبي قال إنه سيدي هيو ملك دغه لا يسوي ما من سنه خير خلق الله ما من سنه سيد القوم ملايين ويخالوا وحنكون ملاينا أنك أديك ما أنت سيد إن أتى سيد كاسو معيون ما أنت لقوم يسنه ما أنت لكم قوم ينمك بدله قوم ينم إحنا كمثل خير خلق الله هو كتر ملها marka meeshan culimada suraaftu beedkan ay waxay ka daliishadaan sayyidun ma'yunun eraygan mu'talul ayni bil ya ism maf'ulkiisi oo la tasxiixi markaas ka daliishadaan mufassiriintuna markay ay fasirayaan aayadan gabaygana iyaguna meeshan ka soo daliiliyaan culimada mufassiriinta wa in yakadu alladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa huwa illa dhikrun lil alamin aayada markay fasirayaan mufassiriinta waaweyn iyaguna halkaasi shaahid waxay u keenaan aayada sabab nuzuulkeedii inuu ahaa ninkan hadalkiis marka qolow meel ay ka daliishanay gabay qolow meesha marka munaasabada ay la leedahay ay gabay ka daliishanayaan